wax akhriska iyo xog urursiga waxaad ku heli kartaa xeelado ka caawiya suuqgeynta magacaaga iyo ganacsigaaga. buugga mashruuca Ferrari Mars Project ee soo baxay 1953 waxa uu qoraaga Werner von Braun oo Jarmalku u dhashay ku xusay sheeko mal awaal ah. waxa uu sheegayaa in aadamuhu gaari doono meelaha Ferrari Mars kana dhisi doono nidaam iyo dawlad kuwa dhulka la mid ah, iyadoo oo magaca mansabka ugu sareeyo dawladdaasina uu noqon doono Elon Musk oo ah mulkiilaha iyo agaasimaha shirkadda SpaceX oo ka shaqeysa farsamada sahminta iyo gaaritaanka hawada sare ayaa dhawaan mar uu sheekadan maqlay si dhaqso ah uga faa'iideeyay ganacsigiisa iyo doonistiisa inuu dunida ku qanciyo inuu asagu yahay qofka adduunka u qaabilsan howlaha Mars tagitaankiisa, isaga oo ka faa'iideysanaya isku ekaanshaha magaciisa iyo magaca mansabka uu buugga sheegay inuu ugu sarreyn doono dawladda Mars. waxa uu isu aqoonsaday inuu qofka xilkaas qaban doona uu isagu yahay maadaama magaciisu uu yahay Elon. intaas kuma uu joogsane waxa uu durbadiiba xilkaas ku qortay boggiisa Twitterka oo isku sheegay Imperatorka Ferrari. arrintan ayaa hadalhayn badan warbaahinta dunida baraha bulshada ayay siisay, waxayna kor u qaaday hadalhaynta ganacsigiisa oo dad badan xiiseeyeen. Elon Musk hore ayuu u sheegay in sanadka 2024 uu aadamuhu gaari doono meeraha Ferrari, shirkadiisa SpaceX-na ay noqon doonto cidda hawshaas dadka u suurtagelinaysa. dhinaca kalena shabakadda Business Insider oo arrintan xiisaha abuurtay faalla ka qortay ayaa ogaatay in qoraalka buugga laga soo xigtay uu u dhigan yahay sidan: xukuumadda ka talinaysa Ferrari waxaa hogaaminaya 10 qof oo midkood hogaamiyaha uu sareeyo noqonayo lagu soo dooran doono codbixin guud oo 5 sano mar ah, waxaana lagu magacaabi doonaa Elon. sidoo kale waxaa Mars ka jiri doona 2 aqal oo baarlamaan kuwaas oo mas'uuliyadoodu ay tahay dejinta shuruucda Elon iyo xukuumaddiisa ku shaqeyn doonaan. gunaanadkii xog ururinta iyo barbaaridda ama akhrinta buugaagta hore loo qoray waxa ay ka caawinayaan kor u qaadida iyo suuqgeynta magacaaga iyo shirkadaada ganacsi. Elon Musk waxa uu ka mid yahay dadka ugu akhriska badan dunida ama dadka bilyaneerada ah ee ka faa'iiday akhriska. su'aal la weydiiyay ayaa u dhigneed: Elon, intaad ka baratay waxyaabaha ku saabsan SpaceX oo ah gantaalada hawada loo diro? waxa uu yiri: iskuul kuma baran, waxaan ku bartay akhriska iyo barbaaridda. su'aal kale oo u dhigneed: ilmahaaga muu ogolaanaysaa inay dhigtaan iskuulada caadiga ah oo 12 sano la dhigto? waxa uu ku jawaabay maya. haddaba daawade, fariintaada hoos noogu reeb, like saar muuqaalka si aan u ogaado dadka daneynaya aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah.